Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada janalka maalmaha. Waxaan idin soo gudbinaynaa qiso ay ku jirto cibro qaadasho. Dad deganaa meel tuulo ah ayaa waxay arkeen arrin ay aad ula yaabeen. Dadkan ayaa tuulada waxa ugu yeelay ceel ay biyaha ka soo dhaasan jireen. Maalmo badan ayay waxay ceelka ku arkeen waxyaabo ay la yaabeen. Mar waliba oo ceelka biyo laga soo dhaansanayo waxaa go'ayo xiriga wadaanta ku xiran. Dadkii aad ayay ula yaabeen arrintan mar waliba soo noqnoqonaysa. waxayna yiraahdeen ceelka waxa ku jiro jinni. Waxa la isweydiiyay qof naftiisa huro oo ceelka dhexdiisa gala si uu u soo ogaado waxa meesha ka jira. Wiil dhalinyaro ah oo kamid ah dadka tuulada degan ayaa wuxuu yiri aniga ayaa galaya, balse wuxuu ku shardiyay inuu walaalkiis ka mid noqdo dadka xiriga qabanayo marka uu ceelka galo. Dadkii waxay la yaabeen wiilkan sababta uu ugu shardiyay inuu walaalkii ka mid noqdo dadka xiriga celinaya, maadaama ay ayagu awood u leeyihiin xirigana ay celi karaan. ugu dambeyntii waxaa loo yiri wiilkii walaalkiis. Wiilkiina sida ayuu ceelka ku galay. Markii uu gudaha ceelka u galay ayuu wuxuu ugu tagay daanyeer meesha fadhiya oo markaas xiriga furaya. Wiilkii wuxuu soo qabtay daanyeerkii, wuxuuna soo saaray madaxiisa. Kadib dadkii wuxuu ku yiri xiriga jiida. Markii uu ku soo dhawaaday ceelka afkiisa ayaa dadkii waxay u maleeyeen inuu soo baxay jinnigii la sheegay. Kadib xirigii ay sii daayeen wayna kala carareen. Waxa meesha ku soo haray wiilkii walaalkiis ahaa, wuxuuna bilaabay inuu xiriga celinayo isla markaana uu ka soo saaray ceelka walaalkiis. Sida ayuu ku soo badbaadiyay. Dadkii markii ay soo laabteen ayay waxay ogaadeen in Alle uu sabab uga dhigay wiilka badbaadidiisa walaalkiis. Hadduusan meesha joogi lahayn ceelka ayuu ku dhici lahaa, sida ayuuna ku dhiman lahaa. Qisadan waxaynu ka faa'iideynaa haddii ay dhibaato timaado qofka kugu soo harayo waa walaalka. Weligaana ha ku kadsoomin dadka tirada badan ee gaararkaaga joogo, maxaa yeelay markii ay runta timaado waxa kugu soo harayo waa midka kula dhashay kaliya. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan subscribe dheh gambalelkana riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono. Mahadsanid.